بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. magacayga waa Antar Said Xuseen, waxaan barkaa xarunta Baafo ee magaalada Muqdisho. waxaan soo bilaabnay warnay barnaamijkeena QuickBooks Online. maanta casharkeena waxaan rabnaa inaan ku aragno noocyada kala duwan oo leeyahay QuickBooks Online. Online naftigiisa wuxuu leeyahay plans kala duwan amba noocyo kala duwan. bal waxaan rabnaa inaan fiirino nooc walba iyo sida uu yahay, kadibna aan isla aragno nooca aan qaadan doono dilaarado oo casharka soo socda aan rabnaa inaan sign up ku sameeyno. waxaan soo kacsanayaa Google Chrome-kayga, meesha search-ga ayaan waxaan ku qorayaa Google. waxaan rabaa inaan baaro maybe control enter haddii aan taabano si uu raacsiiyo .com, si toos wuxuu aadayaa Google-ka ama si caadi u qoraysaa google.com. meeshaan search-ga waxaan ku qoraynaa QuickBooks Online ayaan ku qorayaa, enter ayaan taabanayaa. si toos wuxuu ku keenayaa shirkadda Intuit, waliba waa accounting software and solution QuickBooks Global-ka waxaan rabno kaas ayaan hal mar ku dhifanayaa. meeshaan marka waxaa ka soo baxaya QuickBooks Online-ka page-kooda amba website-kooda. saacadan hadda korskan duubayo bishan waa May 7 2023 waxay sameynayaan promotion ay ku jiraan oo ah bil kasta in $1 bixisid si aad u heshid barnaamijkan QuickBooks-ka. marka sida caadiga lacagaha aad u fara badan yihiin, laakiin hadda promotion ay sameynayaan. wax yar hoos ayaan soo soconaynaa, hoos si aan plans-ka kala duwan aan u aragno ay bixinayaan. dabcan hoos ayaan imaanaynaa. marka meeshan ayay noqonaysaa hoos ugu soo socotid, meeshan ayaan imaanaynaa. waxaa jiro 3 plan ayaa jiro. mid waxaa loo yaqaanaa Simple Start, midna waxaa loo yaqaanaa Essential, midna waxaa loo yaqaanaa Plus. Simple Start-ga sida caadiga waa business-ka markii la bilaabayo midka la isticmaalo. horay $17 ayay bisha qaadayeen, laakiin hadda bacdama promotion ay jiro bil kasto $1 iska bixinaysaa ilaa 6 bilood. waxaa laga yaabaa xilliga adig koorskan aad qaadanayso inuu promotion-kan uu jirin ayaa macquul ah. dabcan promotion xilliga kala duwan ay sameeyaan. marka Simple Start-ga waa midka ugu fudud waay. 30 maalin oo free-na waa iska tijaabi kartaa. anaga kuleeto free-gaas ayaan ka bilaabi doonaa dilaarado ee 30 maalin. haddaba kan ugu horeeya Simple Start-ga isaga inta badan shirkadaha hadda bilaabanayo adeega bixinaya loogu talagalay. marka waxyaalo lagu qaban karo aad iskaga kooban yahay. income expense-ga waa raaci kartaa, invoice-yada waa arki kartaa, bangiga waa ku xiri kartaa, canshuuraadka waa la socon kartaa, xoogaa report waa helaysaa. hal qof iyo hal xisaabiya isla isticmaali karo. macnaha laba qof aa isticmaalayso, qofka iska leh iyo waliba qof xisaabiya. laba user-kaas ayay bixinayaan bishana. dabcan sida caadiga normally waa 17, marna waa ka badayaan marna waa ka yarayaan. promotion-na waa sameeyaan. Essential-ka waa business-kaaga xoogaa markuu dhaqaaq sameeyo. horey $60 u qaadayeen, laakiin hadda promotion ay ku jiraan 6 bilood bil kasta $1 oo kale ay qaadayaan. marka $25 badbaadinaysa ay ka wadaan, laakiin waxaa jira 1 bil oo free ah aad tijaabi kartid. xogaa yar wuxuu ka roon yahay Simple Start-ga xagga balaan ahaan markaa fiirinaysid. waxyaalo badan ku jiro sida employee-ga time-kooda la socon kartaa, bills-kii payment-ga la socon kartaa, multi currency ayuu leeyahay. intaas waxaa sii dheer in 3 qofood ay isticmaali karaan iyo xisaabiye. marka 4 qofood lagu isticmaali karaa. 3 qofood iyo hal xisaabiye ayaa ku isticmaala. macnaha meesha rabaan adduunka ka joogaan way ka soo galayaan wayna ka isticmaalayaan. kan ugu fiican waxaa loo yaqaanaa Plus, walow uu jiro mid afraad oo advance lahaaya, laakiin weli aa u malaysid in dhinacayna aysan weli u soo deynin. laakiin anaga saddexdaana si caadi u aragnaa. Plus-ka waa ganacsigaaga markii uu ka weynaado kaliya inuu adeeg bixiyo. markaan badeeca markii jirto Plus-kan ayaa la qaataa. Simple Start-ga iyo Essential-ka inta badan markii adeeg la bixinayo ku fiican yahay. Plus-kan waa markii badeecana ay ku jirto adeegna uu jiro. midkaan isticmaali doono midkaan ayuu noqonayaa. hore $36 ay bishii u qaadayeen, laakiin hadda promotion ay ku jiraan $1 la ka dhiga. $36 badbaadinaysaa 6 bilood. marka meeshii bil kasto 36 ka bixeed waxay ku dhahan $1 iska bixi bal soo tijaabi. +1 hal month amba hal bilo free-na waa tijaabi kartaa oo iska fiiri kartaa. anaga free-gaan ka bilaabi doonaa hadii la raado. waxaa sameyn kartaa dhammaan wixii loogu talagalay xisaabaadka accounting-ga in lagu sameeyo. income-yadii, expense-yadii, invoice-kii, canshuuraadkii, wixii dhammaay waxaas oo dhan waa qaban kartaa. intaas waxaa ku sii dheer inventory-gana waa maamuli kartaa, waa control kartaa. labadan plan oo ka horeeyay ma lahayn wax badeeca amba inventory shuqul kuma lahayn. ayaga waxay iska hayaan service oo kaliya. laakiin badeecada taa shirkadaada waxaa ku khasbantahay Plus-kan inaad qaadatid. haddii project-kii wax lamid ah aad maaraysidna sidoo kale waxaa helaysaa project-da. budget-ka waa sameyn kartaa. waxaa intaas ku sii dheer 5 qofood ayaa ku isticmaali kartaan iyo waliba xisaabiyihiina. macnaha 6 qofood ayaa ku isticmaali kartaan.
marka xarumo kala duwan haddii qof walba uu joogo ama magaalada uu joogo qof kasta oo username iyo passwordkiisa ayaa loo sameynayaa meeshaas ayuu kasoo isticmaalaya wixii daatana uu kasoo geli karaa laga wadaa. haddaba midka annaga aan rabno in aan koorskeena aan ku baran hadduu ilaahay wuxuu noqonayaa balaskan dabartaminis labadan kalena waa taqaanaa bacdama balaska isaga uu ka badan yahay xagga isticmaalka wax badanna uu ku jiro gudihiisa balaskan ayaan fiiri doonaa haddii la yiraahdo isaga ayaanan projectyada aan qaadanayna ama kambaniyada aan rabnay inaan sameyno serviceka merchandisingka iyo wixii kale aan ka gaarno asaga ayaan ku sameyn doonaa haddii la yiraahdo. cashirka soo socda sign up ayaan ku sameynayaa 1 bil oo free ayaan qaadanaynaa haddii la yiraahdo si aan wixii practical aan ugu baahannahay bishaas freega aan ugu sameyno. midkan online-ka waxyaalo ku fiican yahay waxaa ka mid ah horta ma ka cabsoonaysid in daatada ay ka lunto wuxuu ku jiraa sida Facebook oo kale waaye shirkadda QuickBook ayada ayaa ku haynaysa xisaabtaada waxa ka database-kooda ama server-kooda ayay kugu shubayaan meeshaas ayay kugu haynayaan caalamka meesha ka tagtidna waa ka isticmaali kartaa waa ka geli kartaa kaliya waxa u baahanaysaa inaad haysatid qad internet iyo qalab isticmaashid oo ku gashid haddii aad computerkaaga isticmaashid waa ku geli kartaa haddii aad isticmaalaysid mobilkaaga sidoo kale waa geli kartaa QuickBook-gaaga waa isticmaali kartaa sidoo kale tablet haddii aad haystid waa isticmaali kartaa marka nidaamka Android haddii aad isticmaalaysidna QuickBook waa isticmaali kartaa sidoo kale computerkaaga Windows kugu jirana waa ku isticmaali kartaa oo sidaas ayaa ku galaysaa oo hadii waxa u baahan tahay kaliya aalada ku isticmaashid iyo waliba internet haddii markii internetka cariiri uu kaaga jiro xogaar QuickBook online-kan culays ayuu kugu noqonayaa sababtoo ah haddii internet aadan haysanin QuickBook online lama isticmaali karo wuxuu u baahan yahay internet inaad haystid marka waa inaad ka fikirtaa magaalada aad joogtid ama meesha aad joogtid in internet joogta laga heli karo haddii internetka uu iska maqnaanayo isbuuc 2 isbuuc amba bil la weynayo taas culays waay hadhow waxa waa xisaabtii lagama shaqaysiin karo mana la isticmaali karo wixii data loo baahan yahayna ma laga fiiri karo sababtoo ah customer socdaa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay statement daawac internet aad haynin xogaar way cuslaanaysaa waxa ka roonanaya midkan desktopka amba offline ku shaqeeyo in markaas la isticmaalo anyhow waxay noqonaysaa insha Allah cashirka soo socdo in aan bilowno qaabkii aan sign up u sameyn lahayn oo 1 bil oo free oo trial oo tijaabo aan u qaada lahayn maanta insha Allah taala intaas ayaan ku hakinina meeshan ayaan kasii wadi doonaa cashirka soo socda subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.